markii ay kufsadeen kadib waxay isku dayeen inaysan wax caddeyn ah reebin. Nafto ayay soo qaateen kadibna qaybaha hoose ee jirkeeda ayay ku shubeen kadib dab ayay qabadsiiyeen si aan loo arag raadadkii kufsiga. saaxiibayaal, muuqaalkeena maanta waxaan ku qaadaa dhigi doonaa waa tuma Cabiir, maxaa loo kufsaday, maxayse kalabsatay, yaa kufsaday, yaase ugu dambeyn dilay, xagee ayay ku dambeeyeen qoyskeeda, maxayse qabanayeen markii kufsiga iyo dilka la isugu darayay gabadhooda. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay kanaalka subscribe inoo saar, muuqaalkan inoo like garee, iskuna day inaad ugu yaraan hal qof sii gaarsiisa muuqaalkan. Adaad dhumaasan tihiin, kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. qisadan waxay ka dhacday dalka Ciraaq, balse intaanan u guda galin bal wax yar aan dib u laabanno. sidaan wada ognahay bishii Maaj sanadii 2003 dalka Ciraaq waxaa ku soo duulay ciidan Amerikaan ah ama dowladda Mareykanka, iyagoo markaas dhibaatooyin badan ka geystay dalkaas. waxaadna moodaa in dowladda Mareykanka ay soo xushay askarta ugu arxanka darneed ciidankeeda. waxaana muuqaalkan uga hadli doonaa qoys ka mid ah qoysaska dhibanaha u ah ciidankan arxanlaabayaasha ah. Cabiir Qaasim Xamse Al-Janabi waa gabar muslimad sunni ah, yacni markii la joogo Ciraaq iyo wadamada ku hareeraysanba waxaa isku dhex nool dad Shiica ah iyo dad Sunni ah. marka Cabiir waxay ahayd muslim sunni ah, waxayna ku nooleed galbeedka Maxamuudiya oo ku taalo dalweynaha Ciraaq. Cabiir waxay la nooleed hooyadeed Fakhriya Daaha Muxsin oo 34 jir ah iyo aabaheed Qaasim Al-Janabi oo 45 sano jir ahaa. waxaana la dhashay 3 walaalo ah, hal gabar iyo 2 wiil. Hadiil waa gabar 6 jir ah, Axmed oo 9 jir ah iyo Maxamed oo 11 sano jiray. gabadhan waxay ahayd 14 jir oo waa curada reerkan dhibaatada baahsan loo geystay, waana gabadha kaliya u dhaqdhaqaaqda qoyskan, qabatana howsha guriga kadib markay ka timaado waxbarashada. gurigooda wuxuu ku yaalay sidaan soo sheegnay galbeedka magaalada Maxamuudiya oo qiyaastii 31 kiiloomitir u jirta Baghdad oo ah caasimadda dalka Ciraaq. guriga ay Cabiir degneed wuxuu 200 mitir u jiray bar control ay lahaayeen ciidanka Mareykanka. Cabiir waxay kala walba soo mari jirtay wadada ay sabaarada u taalo ciidankan Amerikaanka ah, waxayna ahayd gabar aad u qurux badan. askarta meesha joogto waxay ahaayeen 6 askari oo kala walba markay arkaan gabadhan yar way ku mashquuli jireen oo wayba ku sheekaysan jireen. mararka qaar waxay isku qabsan jireen aniga gabadhan hanan doono iyo aniga iska leh. askarta qaar wayba soo dabakici jireen si ay gurigeeda u soo arkaan. qoyska reer Al-Janabi waxay lahaayeen beer oo kala walba waxaa beerta loo diri jiray Cabiir. ciidankan damacu waalay waxay arkeen in gabadhani ay keligeed aado beerta, micnaha qof muusan raaci jirin, iyada oo kaliya ayaa howsha beerta iyo tan gurigaba isku haysay maadaama ay ahayd curada qoyskani. ciidankii waxay bilaabeen inay usoo dabakacaan beerta oo u dhaxaysay guriga ay degnaayeen reerkani iyo halka ay joogeen ciidanka, oo beerta qayb ka mid ah intay fadhiistaan ayay daawan jireen iyadoo beerta waraabinayso. marar badan ayay isku dayeen inay xaggeeda aadaan, balse iyaga ayaaba khilaaf soo kala dhexgali jiray. sidaa ayayna dhowr jeer ku badbaaday miskiintan yar, iyadana kama warqabto intaas oo dhan. balse Soomaalidu waxay dhahdaa doqon xantiisa ma mooge. Cabiir ugu dambeyn waxay ogaatay in ciidankani ku sheekaystaan kuna jira damac iyada xaggeeda ah. laakiin maalinkii dambe waxaa aragtay Cabiir hooyadeed in ciidanka halkan jooga ay ku maqan yihiin gabadheeda, oo mar walba waxay dhihi jirtay hooyo waan kuwa cabsanaa taxadar. sidoo kale aabaheed wuxuu go'aansaday in gabi ahaanba uu ka bixiyo madrasada maadaama ay qasab tahay mar walba oo iskuulka loo socdo in la maro halka ay ciidankan joogaan, yacni wadada ay ciidankan fadhiyaan ayaa ah wadada kaliya ee gasho iskuulka. marka wuxuu go'aansaday si gabadhiisa ay ugu badbaado inuu waxbarashada ka reebo. run ahaantii Cabiir waxay ahayd gabar aad u qurux badan, gabar dheer oo indho waaweyn oo madow leh, waxaaba moodaa 20 jir curdun ah. waxaa laga yaabaa haddii aad arki lahayd inaadan rumaysan lahayn markii lagu dhaho gabadhan waa 14 jir, waana sababta ay ugu hari laayihiin ciidankan oo xitaa shaqadii halkan loo keenay u gabay. sheekadu waxay sidaa kusii socotaba waxaa la soo gaaray maalin madow, maalintii ugu xanuunka badneyd qoyskan, maalin ay wax walba isbedeleen, maalin uu reerku u dhaxeeyay nolol iyo geeri. subaxnimo Axad ah 12 Maarso sanadii 2006 5 askari oo Mareykan ah ayaa wajiyada u soo xirtay sidii dagaalyahano, yacni sida kuwa u socdaan howlgal military. waxayna weerar toos ah ku soo qaadeen guriga Cabiir iyo reerkeeda ay degnaayeen, waxayna ku andacoodeen inay hub raadinayaan. marka waxay yiraahdeen hub ayaan ka baaraynaa gurigan
oo waaba ka shakinay. Kadib waxay bilaabeen inay si toos ah u abaaraan Cabiir oo ah gabadha ay qisadani ku socoto. Waxayna qol ku wada xareeyeen Cabiir, hooyadeed iyo aabaheed, iyo gabadhii yareed ee la dhalatay Cabiir. Guriga waxaa ka maqnaa Axmed iyo Maxamed oo labaduba ku maqnaa waxbarasho. Markii ay intaas sameeyeen, waxay qol kale ku xareysteen Cabiir, laakiin Cabiir aabaheed, Qaasim Aljanabi, markuu arkay in gabadhiisa qol lagu xareystay asna gooni loo bixiyey, ayuu dareemay in xaaladdu ay ka weyn tahay hubbaaris. Wuxuuna bilaabay inuu iska caabiyo oo xoogaa ayuu la dagaalamay askartii ilaa ugu dambeyn ay dileen Cabiir aabaheed iyo sidoo kale hooyadeed. Intaa kadib waxaa qayle iyo ooyin isku dartay Hadiil, gabadhii yareed ee la dhalatay Cabiir, iyadoo neeftuureysa. Kadib iyadana way ku dareen oo malaha markii hore waxay islahaayeen yiriistan iska daaya oo idinkama dhicin karto walaasheed. Waxaana saddexduba dilay askari loogu magacaabo Stephen Dale Crane. waa mujrimkan wejigiisa idiin muuqdo. Intaa kadib waxay bilaabeen inay kufsi u geystaan ama ay kufsadaan Cabiir, oo Stephen iyo laba askari kale ayaana geysteen kufsiga, balse way qaylisay Cabiir si ugu yaraan ay dariskeeda ugu soo baxaan. Laakiin cidna kuma soo bixin maadaama askariga soo haray uu banaanka taagnaa. Yacni 4 askari ayaa guriga gudaha u kashay, halna banaanka ayay istaajiyeen. Markii ay bilowday qaylada ayay barkin wejiga kaga dabooleen si codkeeda aan loo maqlin. Intaa kadib markii ay howshooda dhammaysteen ayay dileen Cabiir oo madaxa ayay xabad kaga dhufteen si aysan caddeyn u reebinna jirkeeda qaybaha hoose ayay dib qabadsiiyeen intay nafta ku shubeen. Micnaha haddii meedkeeda ka tagaan waxay ogaayeen in la ogaan doono ama la arki doono raadadka kufsigii ay geysteen, iyaguna la soo qaban doono. Halkaas ayay ku geeriyootay Cabiir iyadoo xitaa meedkeeda aan sidaa loo aqoonsan karin. Balse nimankan waxay go'aansadeen inay wax walba bedelaan. Micnaha waxay go'aansadeen in gabi ahaanba gurigan ay kubaan si wax caddeyn ah aysan ugu harin. Booliska Ciraaq markay yimaadaanna ay ugu maleeyaan in gurigan uu dab ka kacay, kadibna reerkan ay ku wada gubteen dabkaas. Sidii ayayna sameeyeen oo gurigii oo dhan ayay dab qabadsiiyeen. Gurigiina waa uu gubtay oo xitaa dadkii isku soo baxay way damin waayeen muddo saacado ah. Meedka Cabiir iyo qoyskeedana wuxuu noqday mid baaba'ay oo xitaa wajiyadooda aan sidaa loo aqoonsan karin. Waxaa guriga yimid oo madrasada laga soo daayay Cabiir walaalaheed Maxamed iyo Axmed. Waxay arkeen gurigoodii oo intiisii badnaa bas beelay, derbiyadiina madoobaadeen, guriga banaankiisana ay dhooban yihiin dad aad u badan. Waxay soo galeen gurigii, waxay arkeen dhiig wasaqaysan oo qulqulaya. wax yar haddii ay sii socdeen waxay arkeen meedka walaashood Cabiir. Ooyin iyo qaylo ayay isku dareen. Kadib waxay dhinaca kale ka arkeen meedadka hooyadood iyo aabahood iyo meedka yaraantii guriga Hadiil. Axmed iyo Maxamed waxay noqdeen kuwa shoogsan oo xitaa hadal ka soo bixi waaye. Intaa kadib waxaa halka yimid booliska. Baaritaano badan ay sameeyeen kadib waxba maysan helin, ileen nimankan wax caddeyn ah maysan ka tagin. Gurigii oo dhanna dab ayay qabadsiiyeen. Balse booliska waxaa cadaadis saaray qoyska uu ka dhashay Qaasim Aljanabi. Kadib boolisku waxay go'aansadeen in aan kiiskan la xirin oo baaritaanku ahaado mid sii socda si ugu yaraan wax uun loo helo. Ugu dambeyn waxay ogaadeen in dadka falkan geystay ay ahaayeen ciidankan Ameerikaanka ah. balse markay booliska xaqiiqda ogaanayaan waxaa laga joogaa kufsiga, dilka iyo xasuuqa Cabiir iyo qoyskeeda muddo 3 bilood ah. Yacni 3 bilood kadib ayay booliska heleen cadeymo ku filan. Booliskii waxay dacwo ka gudbiyeen askartii falkan geysatay oo madaxdoodii ay la hadleen kuna wareejiyeen cadeymihii. Balse askartii kale ee Mareykanka ahayd ayaa isku dayday inay rabshad kala kiciyaan. Micnaha waxay u sheegeen askartii Ciraaq ee dacwadan soo gudbisay in falkan xun ay ka dambeeyeen ama ay ku kaceen maleeshiyaad Sunni ah. waa sida ay hadalku u dhigeen. Dood dheer kadib madaxdii ciidanka hogaaminaysay waxay go'aansadeen in iyaga naftirkooda ay sameeyaan baaritaano si ay u xaqiiqsadaan dhacdadan ay ka quusan la'yihiin. booliska iyo shacabweynaha Ciraaq waxaa la soo xiray 6 askari ee ku sugnaa barta control. waa la ciqaabay oo la jir dilay si ugu yaraan wax uun looga soo saaro. balse askarigii lixaad ayaa runta sheegay. waa kii ay isbaarada ugu soo tageen markii ay weerarka ku qaadayeen reerkan. wuxuu sheegay in 5 askari ay ka dambeeyeen kiiskan. Stephen Crane ayaa runta sheegay markii uu ogaaday in kiiskan uusan meel uga baxsan karin. wuxuu sheegay inuu dilay Cabiir iyo hooyadeed iyo aabaheed iyo gabadhii yareed ee la dhalatay Cabiir ama Hadiil yaraantii guriga. wuxuuna intaas ku daray in kufsiga uu wada jir ahaa
balse dilka uu isaga wada geystay. Kadib waxaa la soo taagay maxkamadda waxaana lagu riday xukumo kala duwan. James Baker ayaa lagu xukumay 90 sano oo xabsi ah, halka Paul Curtis lagu xukumay dil, balse waa la cafiyey waxaana lagu xukumay 100 sano oo xabsi ah maadaama uu qirtay inuu dambi galay. Waana ninka gabi ahaan gubay guriga qoyska reer Janabi. Jesse Spellman iyo Brian Howard ayaa iyagana lagu xukumay xukun isku mid ah 110 sano oo xabsi ah, balse Karin ayaa iska dhigay nin waalan, micnaha qof aan miir lahayn. sidaa darteed xukunkiisa ayaa dib loo dhigay. Hogaamiyayaasha ciidankana waxay damceen inay raadiyaan waddo uu ku badbaadi karo. Isdabamarin badan kadib way ku guuldareysteen inay Karin badbaadiyaan. Maxkamaddii ayaa mar kale wacday Stephen kadib markii la soo xaqiijiyay caafimaadkiisa, waxaana lagu xukumay xabsi daa'im. dood dheer kadib maxkamaddii ayaa ka laabatay xukunkii, waxayna ogolaatay in xabsiga lagu sii hayo 150 sano. Haddii aan si kale u dhaho, waxaa lagu xukumay 150 sano oo xabsi ah. Ninkan waxa uu sheegay inta aan xabsiga loo taxaabin inuu jecel yahay dhiigga Ciraaqiyiinta, uuna aamin laayahay in xukunkan loogu riday qoys Ciraaqiyiin ah uu laayay darteed, oo wuxuuba taagan yahay sidee la ii maxkamadeyn karaa. Dadkaas dhiigooda wuu ii bannaan yahay, waana sababta halkan lii keenay. ugu dambeyn maxkamadda go'aankeeda way ku adkaysatay, waxaana loo taxaabay Karin xabsigii. sida ay qoreen wargeysyo badan, Stephen uu ka qoomameeyey dhibka uu u geystay reerkani, wuxuuna noqday qof isku dhex yaacsan intii uu xabsiga ku jiray. wuxuu sidaa ahaadaba 15 Febraayo sanadii 2014 ayuu go'aansaday inuu nafta isdhaafsiiyo. sidii ayaana dhacday oo waa uu isdilay. saaxiibayaal, halkaas ayuu ku egyahay muuqaalkeeni maanta. sheekada Cabir Qaasimna waxay ahayd sheeko la hadalhaye sanadii 2006, waana mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu xanuunka badnaa ee laga soo wariyo Bariga Dhexe ama guud ahaan dalalka Carabta.